حتى وحنيه كرنا وحو هلمامي عبد العزيز لفتا قرين نفتي سيو هلمامي dayactirka naftiisa iyo hilmaamay madaxweynayaasha kale waxaad aragtaan inay madaxweynayaal isdhiibay ay yihiin oo deegaanadooda ayaguna gooni ah uga soo hadli doonaaye madaxweyne Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta gareen ugu dambeyntii waxaan dhihi karnaa waa madaxweynaha kaliya ee naftiisa ka hormariyay nafafta kale ee uu wakiilka ka yahay ama mas'uulka ka yahay reer koonfur galbeed waxa ay haystaan madaxweyne u qalmo madaxweyne matali kara madaxweyne deegaanada u qurxin kara madaxweyne ciidanka u dhisi kara madaxweyne maxuu ahaa waxa ay doonayaan ee horumarka bulshada asaasiga ah u sameyn kara dawladaha kalena la gorgortami kara ayay haystaan ciidan u tababari kara ayay haystaan madaxweynahaasi ha iska fakinina qaaqlayaasha siyaasadeed ee buurha kaba jooga ama xudray ka degan leeyahay tala idima soo wadaan haday tala soo wadaan maxamed cismaan jawaari tala baarlamaanka gudoomiyaha ayuu soo noqday maxuu talo ugu soo wadi waayay koonfur galbeed maxuu ay maxamed mursal baarlamaan ayuu gudoomiye u soo noqday maxuu wax ugu bedeli waayay qaranka waa madaxweynaha maxuu ahaa booska labaad oo madaxweynuhu ku fadhiyay oo wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha shacabka ayuu soo noqday hadii dadkaasi ay wax ka bedeli karaan koonfur galbeed maxay ugu bedeli waayeen markay talada hayeen hadda Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo dalkii dhisay deegaanadii dhisay ciidankii dhisay ciidanka qalabeeyay dadkii baraarujiyay miyaa la leeyahay annagu waxaan rabnaa doorasho Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta gareen wuxuu idinka qalmaa reer koonfur galbeedow 30 sano hadda kadib inaad talada u dhiibataan si uu deegaanadiina u hormariyo dhulkiina idinku dhiso idin camiro warninkan waa ragii hore waxa dawladnimadu wax buu ka yaqaana dadkan qaaqlayaasha siyaasadeed ee Turkiga iyo Nairobi iyo maxaa ahay meelaha kale ee lagu soo qalabeeyay ee xujo wata inay dhulka dhistaan inay dhulka gataan dekadii baraawa gataan dekadihii kala duwanaa ee dalkiina laha ama deegaanadiina laha inay gataan rag rabo qaaqlayaasha siyaasadeed ka feejignaada war ka feejignaada yay idin gaadin madaxweyne Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta gareen heeyla hadda uu idin kaga baahan yahay shacab uu haystaa shacab reer koonfur galbeed idinku idin haystaa Cabdulcasiis maanta idinku wax idinku yahay haddaad xumaysan idinka xumeeyay haddaad wanaajisan idinka wanaajiyay dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qaabka uu u dhisay qaabka uu u qalabeeyay qaabka uu u hormariyay qaab kale ama dawlad goboleedka hadda way u horumarsantaa aan dhihi karna malahan dawlad goboleed la 3 ila bor dawlad goboleed la maxuu ahay xarumo kala duwan dawlad goboleed leh qalabka ciidanku dhisayaan Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta gareen salaantaas iga gaarsiiya salaam baan u soo waday salaantaana iga gaarsiiya waa madaxweynaha kaliya u qalma in uu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya